su'aalaha qaarkood oo la isoo weydiiyo markaan arko mar waa qoslaa marna waa xanaaqaa marka aqosla maxaa qoslaam ka see sababta su'aalaha qaarkood baa waxaan ugu qoslayaa fartuun cali ma loogu qabaa fartuun cali ilmo ma haysataa ilmo ma dhashay ilmo ma ku joogo fartuun cali aaway xaajigaagii maa noo soo fadhiisisid su'aal ugu qoslo laga yaabo soomaha aad iyo aad u wada mahadsantiin jawaabahoodana halkan ayaga kala socdo inaad ka heli doontiin aan rajeynaa jawaabahooda waa idin mahadcelinaa dhammaantiin dadkii soo weydiin aad ugu mahadsantiin inkastoo su'aalaha personality-ga aan jeclayn in la isweydiiyo haddana anaa idin hor imaadeen inaa waxaad niyadiina ku jira isoo weydiisiin ma inkaga xumaanayo بسم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا سلام الأمان ولا الله قال إيه بكرة جنة القيقة جودهان من القصة الجوكتين وحين رجعنا خير عفمت فرحات بش إبرواقين وكون ورتين إن شاء الله والله فيديو هذا داوت حققت أنا لايك إسرتت هذا أقول سكتين سودو هذا هو اللي جوكتين أدي أضم هتصنت هاي برنامج كان كهلا يحوي هاي وحق أركيسا أو ويدن دم لا يقدر waxaa arkaysaa oo dadka ku soo batay su'aalo oo qofka la weydiinayo horta hadda anaga Soomaalina inta badan waa iska jecelnahay qofka social media ku jiro ama qofka media joogo inaa ogaano wuxuu yahay iyo wuxuu haayo iyo wuxuu qabtay iyo wuxuu dhalay iyo meeshuu ku hayday iyo meeshuu joogay waxaas oo dhan fuduusha iska jecelnahay inaa qof walba ogaado rabaa su'aalo dhowr oo la yaabo la tacajabay soo noqotay hadda korna aan ka jawaabay qaar kamid oo mar walba soo noqotay jiraan su'aalahaas maxaa kamid fartuun cali ilmahaagi aaway ilmo ma dhashay maxaa la dhihi jiray ninkaadi aaway nin ma ku qabaa goormee ninkaaga kula soo fadhiisanaa maxaa la dhihi jiray xageed ku nooshahay marka qaar su'aalo maxaa la dhihi jiray xagee ku nooshahay su'aalo way badan yihiin horta kor xataa ma la wada xifdin karo marka su'aalaha xagee ku nooshahay oo kaleeto iyo waa wax iska looji oo macquul ah oo qofka bini aadamka oo haduu ku weydiiyo uga jawaabi kartid oo su'aal gaaban ah laakiin su'aalaha kale to personality-ga ah aad iyo aad baa looga fiican horta aad iyo aad ugu mahadsantiin soo weydiisin laakiin su'aalaha personality-ga waa laga fiican yahay Soomaali Maxamedey inaan mar walba la isweydiiyo sababta ah aniga markaan bilaabay dhowr bilood ka hor YouTube-kan inta soo fadhiistay idinma ballan qaadin oo idinma dhihin caruurtayda ninkayga qoyskayga inta kaleeto oo dhama family-gayga oo dhan aan meesha soo fadhiisina oo idin bara idinma dhihin taas ballan qaadkaas ma sameynin hadda kadibna inaan sameeyo ma ahan qorshaha iguma jirto sababtan waa idiin sheegaa marka idinkana marka aad dadka weydiinaysiin idinka qaarkood oo xumaan inay ka weydin oo xumaan qofka inuu weydiinin walaalkiin oo rabtiin qofka baratiin maadaama qofka wajigiisa idin ka hor imaado oo in ka soo hor muuqday rabtiin inaad baratiin waa fahmi karaa aad u mahadsantihiin laakiinse iga raali noqda aniga su'aalaha personality-ga inta badan ma jecli inaan ka jawaabo laakiin hadda waa inaan kaga jawaabo waa masti maadaama aad dhowr jeer ugu soo celceliseen laakiin si kooban aan kaga jawaabo hadduu Ilaahay yiraahdo anigu Muqdisho ku noolahay meesha ku noolahay haddaan ii sheego waxaa ku soo hartay caruur waa leeyahay maasha Allah alxamdulillah laakiin hadda caruurtayda hadda keena xataa meeshan maxay soo kordhinayaan waa sababtoo ah waa ilmo yar oo hadal aqoonin oo hadal wali gaarin marka meesha hadii la keen xig qabayaan waxba kama qabanayaan Soomaa marka wixii hadal iyo dhiirgelinta haweenka iyo wixii kale soo qabad ana in kugu filan caruurtayda soo xawin ma sheegi karaan waa ilmo yar oo saqiira ah Allah iska dhaafo inta haysanin Ilaahay siiyo taas caruurta taas waay mid kaleeto oo ninkayga nin way qabay alxamdulillah xaas oo degan ba ahay aadan ugu mahadsantihiin xaajigeygana laga yaabo inuu halkan soo fadhiisto sababtu maxay tahay aniga ma jeclaan horta inay dadka oo maxaa dhihi jiray familiyaadka oo maxaa dhihi jiray dadka oo isqa qabo oo isu soo fadhiista meesha iyo in aniga naftirkayga leela soo ag muuqdo ana marba social media hada soo galo ana meesha soo fadhiistay inuu asagana soo fadhiisto muhiim uma arkin
asna ma ahan dadka jecel midiyaha iyo YouTube iyo waxaas inuu ka soo muuqdo dadka oo xiiseeyay waxaas ma ahan marka insha Allah waxaan rajeynayaa marka inaad su'aashaasna halkaas uga qanacdeen inaan markalena soo noqonin أنا أول ما أسنتين إنه مركل أنا هي سواء نقانين ده سوي على سين مركل ضمبتي يا ويلك معها مركل ده سوي على سين واسكت دوفين أنا إذن كه إن تذكر على طق واحد كتب هدي إلى تقص بير تونا channel كيان فيديو كان في صادة دربتين ناس برسونال تأيبرتين إن وحقوصه هرتي ماشي نشوفه وانيد شيء عرورت وانيد شيء حاجة وانيد شيء ما حكى له wax kale ma jiraan marka insha Allah barasho wanaagsan ma fiicna horta ina caruur hadda riwaayada soo wada hadii ilaahay yiraahdo riwaayadaas waxa uga hadli rabaa hordhaca dad sii sheeg qish dad badan waxa jiro qishka iyo fikradaha maanta hadii la sheego meeshan ay ka sheegto dad waxa soo wada daf Soomaali xaasidnimo qaarkood wax iskuma qoran waxna iskuma ogol qofa sas labada gacmood ugu dhageysaan ku dhahay barnaamijkaas ay soo wada fartuun cali ama waxaas soo wada dadka ku dafku siinayaan ku dhahay hafkaas siinay marka saas darteed waxaan soo wada hadda ma sheegay laakiin riwaayada soo wada hadii ilaahay riwaayadaas laakiin waxay ku saabsan yihiin hadda idin sheego birsax waxa arkaysiin ku dhahay meeshaan oo laga jilaayo ma fahmaysin laakiin riwaayada soo wada hadii ilaahay yiraahdo riwaayadaas ma aragtay ku ogaan doontiin ani sababta aan u diiday ina ani iyo xaajigayga ama ani caruurtayda ama meeshaan iskala soo muluqleeno iskala soo muuqano in ani wallahi dadka waxa tahay ma jecliso media social media qaybiisa kala duwan oo kala marka isticmaal sida maxaan Snapchat ko kala laga yaabaa inaan sawir soo galgaliyo sawirada qoyskayga soo galgaliyo laakiin meelaha kale inta badan ma ku jeclay mana soo galgaliyo caruurtayda qaar qofta sawir qaar wala qaar ku jiraan sawiradooda ma muujiyo marka insha Allah caruurta waa maxaan dhihi jiray waa waxa way caruurta maxaa la dhahaa Soomaali wuxuu ku maahmaahdaa ilaa maaha caruurta waxa ku yihiin xirsi al dhahmo saas darteed ma fiicna in caruurta mar walba meel walba in laga arko oo ku mukaahar meel walba ka muuqdaan ma fiicna maadaama ilmo saqiir ay yihiin oo iyaguna waxba ay sheegi karin haddana ilmaha saqiirka in mar walba la haatiyo oo social media inta la soo galgaliyo ee iska soo maanacdi yani ay isaga jiraan ma fiicna qof walbana dabeecad iyo wuxuu leeyahay joos qaas ah an laakiin dabeecadayda ma aha inay ciyaal aqtay inta meel ka soo muuqdaan aan joogo ama video inta ka soo muuqdaan social media soo galgaliyo insha Allah hadii waa weynaadaan oo inta isla sii noolaano isla sii joogo waa laga yaabaa in aragti laakiin waa ilmo saqiiradana ma ku fiicna in meelaha laga soo muujiyo marka insha Allah aad u mahadsantihiin su'aalihiina ay soo weydiiseen waa idinkaga mahad celinaya ninkaga mana xumaanayo aan maxaa la qof walba ana in soo doonto ma in soo hor fadhiistay sidaas darteed idinkan su'aal kasta to xorba u tiin oo asluubeysan inay soo weydiisaan inay kaga jawaabo xaq ba u leeyahay waxa kale ku saartay meesha aan joogona waan ii sheegay maxaan dhihi jiray social media qaybaha kale ka isticmaal su'aala ahayd Snapchat oo kale waa isticmaalaa Instagram waa isticmaalaa maxaa ku saaray Facebook-na hadwaa waxa kaliya hoos loogu fiirsado Soomaan wararka caalamka iyo wixii soo kordho asagana waa isticmaalaa TikTok hada waa isticmaalaa inkastoo isku soo walwalaaqin wax soo kalin haddana TikTok hada waa isticmaalaa aboodka hada tagtiin inta waa ka helaysiin Snap Facebook Instagram maxaa la dhahaa wixii ayuu nooc wixii aalad la isticmaalo Telegram wixii aalada isticmaal meeshaas waa ku jira insha Allah way halkaas ka helaysiin way iga soo xiriiri kartiin Instagram-ka ay halkaas soo saaraa waa soo follow gareyn kartiin insha Allah aad u wada mahadsantiin dhamaan walaalaha qaaliga channel-ka ay ku xiran inta sidoo kale waxaan aad mahad celin ballaaran oo soo koobi karin aan halkan uga diraayo oo fursadan ka faa'iideysanayo walaalaha qaaliga ah ee ugu soo biiray maalmihii u dambeeyay ugu soo biiray aad u mahadsantiin waxa kale aad ugu mahadsantiin 3,000 inay ugu gaarsiiseen 6 bilood gudahooda aad ugu mahadsantiin walaalahay qaaliga waxaan kale in ka codsanayaa intaas iyo in ka badan inay gaarsiisin dadka ay gaarsiin karaan waa idinka dad kale ma ahan qolo kale ma raadsanayo Soomaali kale ma ajnabi ma raadsanayo waa idinka walaalahay Soomaaliyeed haduu Ilaahay yiraahdo isbedelka mar dhawaan ku sameyn doona channel-ka haduu Ilaahay yiraahdo waa ka heli doontiin insha Allah ta'ala oo ay kamid tahay riwaayadahaas aan soo wado challenge-yo dadka corona markino adduunka kala xirmaano waxa jira aniga wiilal walaalahay ah oo rabo inay mar walba barnaamij ila soo galiyaan meeshan oo qaarkood jaamacada jireen insha Allah jaamacadii waa u soo dhamaadeen
hadda wadooyin adduunku furfurmi rabaa mar dhow hadduu ilaahay yiraahdo qaarkood maalmo kadib way imaan doonaan hadday imaadaan riwaayadahaas inaan dhammaystiro oo fikirkooda aniga aan leeyahay ayaga iga saacidi doono challenge iyo barnaamijyo in xiiso gelin iyo inaan soo geliyana ayaga iga saacidi doono insha Allah maadaama aniga askaahay hooyo iska mashquulshan oo ilmooley ah barnaamijyada intooda badan wiilashaas inay iga saacidaan aan rajeynaa idinkana ku qanci doontiin fikradda Fartuun Cali iyo barnaamijyada ay soo wado mar walba waxaan idin leeyahay guuleysta dhammaantiin Soomaali Maxamed aad idin jeclahay inta ii saarta subscribe inta like ii saarta inta daawata dhammaantiin iyo inta qalbiga igala jirtaba aad u wada mahadsantihiin farxad iyo caafimaad igu noolaada